يا دمان مرت الشرف السلام عليكم ورحمة الله. مر هدي لا تابتay muhiimadda ay leedahay cilmi baaris in lagu sameeyo duruufaha dalkeena haysta runtii oo aad si badan oo fiican loo taabtay in yar baan rabaa inaan halkaa ku daro oo aan taabto oo ah dalkeennu muddo 30 sano burburka la ogaa iyo 10 sano ka horeysay oo soo burburaynay 40 sano iyo ama konton ku dhawaadkaas waxaanu ku soo jirnay marxaladda ka dambaysa oo ka soo dareynay haddana intii dambe aynu burburnay oo aynu u gacan galnay hay'adaha caalamiga iyo beesha caalamka wax la yiraahdo waxaana ku sameeyay mar walba daraasaad dibadda laga soo maanguuriyay dad khubara ah oo inta Afghanistan iyo Colombia ka soo shaqeeyay baa waxay ku soo guuleysteen inta ka tanbay soo sameeyaan بيران جوهري waxaan ku dabaqaynaa iyo burco iyo hargeysa iyo garowe ismaayo macnuhu waxa weeyaan waxaynu ahay mujtamac bukaan ah oo cudurka uu qabo hadduu ahaa koleera ama ahaa hargab hadba loo soo diray dhaqaatiir lafaha ku takhasusay iyo kuwa ka takhasusay maaragtay cilmiyo kale marka waad arkaysaa mar walba lama helayo halkii runta ahaa sababtoo ah khabiirka naloo soo dirayay Soomaalida ma aqoon kamana soo shaqayn adduunkaasu ka yimid in yaruu boobsaday buu la imaanayay Afghanistan buu intoo kale ku soo dabaqay xaaladda Afghanistan wuxuu ku dabaqay Soomaaliya wuxuuna wax shaqo isku leh maahan مثلا يربا waxaan rabaa inaan ka taabto cilmi baarista noocaasihi hadda koor cilmi baaristan ka sameeynay tababarada la yiraahdo dugsiyada farsamada Soomaaliya laga sameeyay oo wasaaradda waxbarashadu jaamacadaha waa la soconaasay yihiin dugsiyada hoose laakiin baahida loo qabay dugsiyada farsamada waxaan ogaanay anigu markaas tirsaskaas aan ka sameeyay anaba liidba ka ahaa erigaba waxa laga ururiyay dhalinyaro fara badan in la yiraahdo waxaan baraynaa korontada in korontada ay electricians 200 يبقول لك أنت ما حسوسته هاي بعد بارك كرتان كيس كاسولو هذا رفتا ريفرنس بقى هذا كرتان UNDP بسميني سي دور بلود دور بقوله كل قطة بخي مجال هذا وحى لجاه ما دام الرجال إلا صوصة كورنتدا تقان نين مهندس إنجنير هاي كورنتيقان هاي مجالات لكن لجاه لما سجى وكان نقول مركب معلم ما دام والشو لو ما باهن إلا كينيا إيو تشاينا إيو meel kale in Soomaaliya waxa la helay bad engineer tababarkii markuu dhamaaday xafladii la xirayo laga soo qayb galay oo shahaadooyinkii dhaliil la siinayo la khudbay wuxuu ku yiri ku soo dhawaada maanta laga bilaabo koronto yaqaan baatiin waxaana la idin tababaray in aad ku xirfadan ku shaqaystaan xirfad cusub idin noqoto laakiin mid xusuusnaado oo anigoo macallinkiiniya oo engineer magaaladan Cerigaba 10 sano degan dukaan baa ii furan baqbuudar hawi qof u baahan koronto loo geli waa magaalo yar oo inta nal ay ka taaganba ayarta marka magaaladaas ba qaadi kartaa 150 koronto yaqaan waa maya waxa arkaysaa investmentigaas maalgelintaas uu galay ayadoo aan daraasad laga sameyn wixii magaalada u baahnayd waxay ka dhigantay adoo gaalka ay u dhisay oo kale iskuulka kalluumaysiga marka maalgelintaasi iskuulka iyo macallimiinta dadka uu barayo kaale adu gaalka dadka soo barta halkay kalluusa meel yaro waxa jirtay meeska la oran ku soo dawaalan jirnay tiina waa baabaaday marka cilmi baaristu waxay horseedaa bini aadamku cudurkiisa in la helo iyo baahidiisa si loo helo halka runta waxaana ogaan karaya qof meesha uu dhashay deegaankeeda yaqaan aqoon-yahan og reerka waxa ku dhacay iyo waxa haysta iyo baahida runta ma aan in loo keeno hadda ilaahay ma hadii wasiir qalooc baa nala fadhiya khubaradii Soomaalida aha wax badan wax ka og qandaraasada tababarada saan u bixino wasiir hay'adaha dawliga ee Soomaaliya maanta soo kordhiyo ay maanta ay kamid tahay hay'adan cusub oo Change for Training waxa way ayagoo kale dirigeliyo oo ay ayagu noqdaan horseedka waxaan hubaa inay ka fiican yihiin
boqol khubaraayo laga keenay daafaha adduunka meel kastoo ay ka yimaadeen anugu intaas baan hadalkay kusoo koobaya waa mahadsantihiin congratulation dadkii soo abaabulay fakaray u dhiiraday hay-addan inay dhibado u aasaan anigu jeer waxaan hadda ka ayahay in la yidhahdo ifsa maareeyaheeda hadda waa nala fadhiya maaqa meel u kacay oo kacid badan yahay shaafi ifsa waxaan ballan qaadaynaa inaan iskaashano hay-addan for change iyo trainingka idinkuna waxaad nooga khibrad badantii aan idinka korsanno annaguna waxaan idinkaga khibrad badanna aan isku kordhino sidaas ayaa markay noqonaysaa in wada shaqayntu iyo kobcu ka yimaado labadeennana xarun waxaa inoo ah miftaax iyagana waxaa weeyaan wasiirad ifraax waxaan kaloo hubaa inay ifraaxna hay-addan u tahay wasalaamu calaykum waraxmat ullah